kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimiga iyo qadarinta mudan oo ilaantiima meel ka soo joogtaanba waa qormo kale iyo barnaamijka aad uga barateen in idinka soo baaho bartamaha Toronto magacaygu waa Maxamed Daahir Xasan daawadayaal aad ku maatantiin waqtigiina qaaliga oo siisaan waxaan idin leenahay hawlka madaalooyin oo cidii wali wahayaan meeshina ka sii wada daawashada barnaamijka iyo had jeer talooyinka aan siisaan maanta waxaan idin haynaa qormo kale oo ku saabsan barnaamijka ama beesha Soomaalida waxyaabaha ku soo kordhay jeer ama ka dhaca dhinaca ubadka ayaa aad Ilaahay noogu manaystay anagoo og in ubad badan ay Soomaalidu guriyooda joogaan waxaan leenahay Ilaahay horumar ha gaarsiiyo caafimaad iyo waxbarasho iyo nolol fiican ha gaarsiiyo hadaba waxa jira dad isku taxalujiyay inay ubadkaas wax la qabtaan inay wax u qabtaan inay tababar siiyaan inay mukhadaraadka iyo mandooriyaasha iyo waxyaabaha xun ay ka jeediyaan in homework iyo iskuulaadka ay ka caawiyaan isla markaasna al-aql saliim fi jism saliim baliriye ay dhinaca sportigana u dabaalaan hadaba sportiga oo badan oo midka atleetikada oo kala duwan haduu ahaan lahaa orodada iyo boodooyinka iyo dabaasha iyo kubadda cagta kubadda koleyga miiska waa uu badan yahay maanta barnaamijka waxaan ku haynaa ururka ama naadiga ama clubka loo yaqaano Ilamos oo iyagu kubadda koleyga tababara ubad badan oo Soomaaliyeed soo saara ayaa marti noogu barnaamijka ku soo dhawaada ugu horeyn waxaan jeclahay inaan soo dhaweeyo macallin Cismaan Bruno oo si weyn aad u taqaanaan kalamidana macallimiinta ururka Ilamos ma santahay Maxamed Daahir muuqaalka TV ma santahay mar kale waxaan jeclahay sidoo kale inaan soo dhaweeyo Axmed Abukar oo loo yaqaano Axmed B saaxiib ku soo dhaweeyo baan ku leeyahay muuqaalka Soomaalida waa ku salaam Maxamed Daahir codka beesha waa tahay Faarax Jaamac Nuur Oday waa isna dad ka tirsan kooxda ama ururka ama guddiga loo yaqaano Ilamos Faarax ku soo dhaweeyo muuqaalka waa salaamantahay Maxamed Daahir oo ku salaamay waa tahay dhamaantiin wad ku maatantiin waqtigiina qaaliga oo siiseen waxaan jeclahay inaan ku bilaabo ugu horeyn macallin Bruno dhawaan waxaad qabanqaabiseen ama aad soo gabagabayseen tartan ama tournament barnaamij dhalinyaro badan isugu keenteen ama kooxo kala duwan bal wax yar noo faahfaahay waxa uu ahaa Maxamed Daahir tartanka oo aan qaban waa sanad kasta ayaan qabanaa caruurta oo da'dooda 16 sano wixii ka yar ayaan u qabanaa sanadkan waxaan qabanay 4 kooxood ayaan tartankan u qabanaa 4taas kooxood oo aan kala magacayaawada aan sanay waa magacyadii Soomaali oo naadiyada oo heerka sare ayaan kala sinay laakiin waxaan ku sii darnay ninkii ahaa Maxamed Basuri waa ninka website-ka xidigaha asagana magaciisa waa sinay laakiin horseed iyo patrolka iyo munishibi ayaan ku magacawnay tartankiina waxay noo bilaabay marka ay ahayd 15 May 2014 ayaa tartankii aan bilaabnay ilaa waqtigii hadda 14 June ayuu noo dhamaatay marka tartankaas waa tartan aad u fiicnaa oo gabagabadeedan waxa isku soo haray 2 kooxood oo kala ah xidigaha iyo patrolka meeshina guusha waxay ku raacday xidigaha tartankaas markaan qabanay waxa dadka maartii dad badan baa meesha ka soo qayb galay oo nagu maartii taageero nagu siiyay inay nala daawadaan marka ayagana maartii waa dadkii abaalmarintii ay waxyaabaha dhanba ayaga nala siiyay marka waxaan kulleey alxamdulillah markastana waxaan jecelnahay inaan tartankan aan maartii oo aan sameeyno oo marka sano aan ku dayno maartii caruurtii wali waxaan si raadino caruurta ka yar 10 sano wixii ka yar aan keenno waa isku try gareyn inaan maartii ayagana aan ciyaar u furno aan tababarna sino waan gartay si weyn baad u qeexday runtii waana wax loo baahan yahay in la ogaado Axmed Day ninka la yiraahdo ayaan jeclahay bal Axmed Day ku soo dhawo mar kale maxaad ku daraysaa inta uu yiri macallin Bruno arinta iyada mahadsantahay Maxamed Daahir macallin Bruno intuu yiri waxaan ku darsan lahay tartankii soo u sheegay waaye gabagabadii waxaan soo gabagabeynay bishan oo June 14keeda aad iyo aad ayaan ugu farxay gabagabadii sidii ay ku bilaabatay qaabkii u dhamaatay barnaamijkaas aan ugu talagalnay caruurtii aan haynay sanadkii nadaafi iyo sanadkan 2013 iyo 2014 aan ugu haynay
barnaamijkan waxaan ugu talna home tournament waaye every year aan dhignaa waxaan ugu talagalnaa caruurta sidii ay ugu tournament ay u suubiyaan 4 team aan u dhignaa sana walbo sanadkaana 4 yar aan u dhignay ay da-dooda ay gaarayso 16 wixii ka hooseeyo alxamdulilah rabbil caalamiin waa si fiican noogu dhammaatay 4 team ay ahayd hal team aan ku guulaystay kooxdii xidigaha ku guulaystay waan gartay si weyn baad u sheegtay waa runtii wax loo baahan yahay in la fahmo ama la garto waxyaabaha hadii jeer aad qabataan ama waxa aad wadeen Faarax Jaamac Nuur Oday Ilaamos maxay uga duwan tahay ururada kale iyo naadiyada kale sportiga oo faraha badan muxuu uga duwan yahay ururka Ilaamos wuxuu uga duwan yahay ururka Ilaamos waa urur ku boobay basketballka waxayna ciyaal waxaan wax ku tababarnaa waa basketball ururada kale oo meeshan ka jira waxay u badan yihiin kubadda cag oo sokorka ay u badan yihiin maadaama annaga aan isku taxluujinay muddo badan aan ilmo tababareynay waxaan ururka u sameynay in bahweynta sportiska basketballka dhalinyarada ah ee ku nool Toronto inaan isugu keeno aan ku tababarno taas waa aan ururka Ilaamos uga duwan yahay ururada kale ee Soomaalida jira waxaan jeclahay inaan ku noqdo macallin Bruno bal wax yar Ilaamos wuxuu ahaa bal wax yar dib u raaco noo faahfaahay ururka Ilaamos waxa igula jiro Axmed Deybi Faarax Jaamac Nuur iyo Axmed Daawud oo mar hore teamka kamid ahaa oo macallimiintii haddana oo maartay oo shaqo u aaday Edmonton marka aniga oo ah macallin Bruno ayaan wax isla wadnaa ciyaarahaasi tababarkaasi oo 4 saac oo aan 2 maalmood sitimaankii ayaan sinaa oo aan ku dagaalanaa si wax uga maartay aqoontooda loo kordhi lahaa xagga difaaca xagga weerarka aytan waxaan kale ugu talagalnay in caruurtaasi ay aan ka badbaadino waxyaabaha xun si maartay sida drugska iyo waxyaabaha xun oo gaanga inaan ka badbaadino ayaan ku talagalnay haddana waa alxamdulillah meel fiican bay noo maraysaa waana rajaynaynaa maartay in ay dadaalkaas aan sii kordhino Axmed Abuukar waan u jeednaayo waxyaabo badan baa Ilaamos runtii waxaad kamid ahayd dadka goobjooga ka ah bilowgii ilaa hadda maalin walbana markaan tagno meesha waxaan ku waranaa adoo uniform ka qaba bal wax yar inta uu yiri macallin Bruno maxaad ku daraysaa dhinaca asaaskii iyo ururka Ilaamos iyo waxaad qabataan iyo waxa uu yahay Ilaamos waxaan ugu talagalnay horta magaca Ilaamos waa haddii oo si u fiirisid magacaas waa magac Soomaali oo si dadban loo suubiyay gadaal loo loo aqriyo waa Soomaali saana dii loo aqriyo waa Ilaamos waxaan ugu talagalnay inaan caruurta Soomaaliyeed aan ku badbaadino meel walba ay joogaan wadanka gudihiisa iyo dibadiisa gaar ahaan wadanka Canada magaalada aan ku noolnahay Toronto ayaan ugu talagalnay inaan ugu badbaadino ubadka Soomaaliyeed waxa xun iyo dhibaatooyinka iyo muqaadaraadka inay kaga badbaadaan anagoo u hornay nafteena maalmaha aan tababarka aan siinayno oo time badan aan gelino aad iyo aad ayaan ugu kalsoonahay timekeena aan gelino waa tahay Faarax maxaad ku daraysaa inta ay yiraahdeen macallin Bruno iyo Axmed Dey Ilaamos waxay qabteen aad bay u fara badan yihiin dhalinyarada aan tababarno waxay isugu jiraan kuwa yar iyo kuwa waaweynba labada arin kuwa yarna markii kuwa waaweyn soo gaaraan bay maaragtay national teamka ka qayb galaan waad ogtahay ciyaarihii Soomaaliya dadkii ugu horeeyay oo ciyaartoy Soomaali ah dira oo national team ku baxaan ahayn ururka Ilaamos oo ahaa oo maaragtay ku tagay Kenya ku tagay Morocco ku tagay Sacuudiga ku tagay intaas ciyaartoy ah waxa laga qaaday ururka Ilaamos badankooda ciyaartoydii laga qaaday waxay ahaayeen ciyaartoydii ka timid magaalada Toronto waxa kale oo jirta waxaan qaban jirnay Somali Week waxa la yiraahdo oo aan isugu keenay all of the world North America Europe aan isugu wada keenay ayaa jirtay oo aan ururkan maaragtay u qabtay oo sanooyin fara badan ay maaragtay ciyaarahaas ay jireen waxa kale oo jirta inaan meelo fara badan aan u safarnay oo ay kamid tahay Orawa oo aan Abuukar Shiino ugu tagnay dhowr jeer oo aan u geynay dhalinyarada yar oo kay under 16 ka ah ay maaragtay ciyaaro badan ku soo ciyaareen waxa jirta inaan Mareykanka tagnay oo hay'adii ugu dambeysay aan ku soo ciyaarnay waxa jirta ka hor inaan Ingiriiska tagnay
oo aan dhalinyaro yar u wadnay oo halka ayagana ay kusoo cayaareen ciyaaro fara badan ayaan sanad kasta ayaan qabanaa oo aan dibadaha ku tagnaa ama Somali week halkaan ku qabanaa ama ciyaaro fara badan oo u qabanaa dhalinyarada yar oo baada Soomaalida ah waxyaabo kasta oo markaad qabataan dhibaatooyin baa dadka la kulma dhinaca uniformka qalabka waa wax aad u badan waa maxaa kamid ah waxyaabaha idin kulmay hadii jeer maxamed runtii waxa waaye ole taageerayaasha dadka aan wax naga siiyo oo fundraisingkaasi waa wax yar oo waalidiinta ayaa ugu horeeyo oo wax naga siiyo aysan nagu filneen maartay waxyaabaha ayna siiyeen marka waxaan sameynaa tartamada markaan qabanan waxaan aan ka helnaa hay'ado maartay ganacsatada maartay sida maartay dawli Eagle Manor waxaan kala jiro oo aan ka helnaa magaciisi qolada magaciisi la yiraahdo meat maartay scales meat iyo magaciisi safe anke iyo wax baan naga siiya dadkaas ayaan na kaalmeeyo oo fundraisingkaas noo maartay xoog saaran laakiin inta badan waxa weeye waalidiintan ka helnaa waalidiintan waxyaabahan ka helnaa waxa waaye wax aan ugu gadno maaliyaalkii matantigii iyo waxa ay loo qabanayo iyo maartay inaan ku sameeyno insurance-kii maartay inaan meesha aan ka soo saarno ayaa maartay waan gartay si weyn baad u qeexday dabcan waxaad tagteen meelo badan yaa kamid ah dadka la ciyaartaan oo kala duwan meel badan waxaan tagnaa horta marka sana kastana aan tagno waa waxa Ohio Ottawa oo halkaasna joogo waa macallin أو كرشينو أو أستجا مركز تنا كده ذال سدو معرتي أن وصمي لهن ترتمو أو صاحب تنما أو حد دا إلا سدي تضوي 8 سنة وحي كير إلا لحي 8 وحي كير وأنا سنة كي هذا قدام بواتقني الحمد لله وكسو عيارني إنكستو معرتي إذا جوشة معرتي aan soo helin Ottawa ayaa sanadkan la wareegay laakiin sanadii hore anaga soo qaadi jirnay guusha waa tay su'aasha dan kale u weydiiyo maxaad ka leedahay markaad eegto waxyaabaha hadii jeer aad la kulantaan dhinaca garoomada kubadaha uniformka safarada aad galeysaan dhibaatooyinkaas faraha badan yaa gacan idinka siiya yaa idinku taageera waxa dadweynaha u faafaahay waa su'aal horta meesha ku jirto waaye garoomada wax sahlan ma aha sida lagu helo garoomada mar lacag qaali ah ku helay marna lacag oo raqiis ah ku helay sidee tahay waa la helaa alxamdulillaah rabbil caalamiin intaasoo sano waa 2002 ilaa hadeertaan saasaan ku jirnay mar aan ku helno bishii $1,000 mar aan ku helno bishii $500 marba si aan ku helnaa alxamdulillaah waa dadaa ka shaqeeyo ay ka mid yihiin Abdirashiid Jamaalo oo aad iyo aad dhinaca garoomada inoo caawino oo sana kamid ah ururka Alamos macallimiinta iyo guddiga iyo kamid ah dad badan ayaa kamid ah Daawud Axmed Dheere oo macallimiintii soo aas-aasay Alamos kamid ah asigana sidii waqti badan geli jiray wallahi alxamdulillaah garoomada waa helnaa sidii wax lagu helabo waa la helaa saan u aruurina caruurtii waxa oo waalidiintii ay noo sheegan donation ay noo siiyaan ayaan wax walba aan ku kabnaa kubadaha iyo wax walba alxamdulillaah rabbil caalamiin waa ku moodnaa dhibaato badan waa jirta laakiin aniga u hurni nafteena inaan ciyaalkan Soomaaliyeed aan wax u qabano inaan meel aan xagana ma aha cidii nagu taageeraysana aad iyo aad ayaan ugu baahannahay mar walbaan u sheegnaa waalidiinta hatta ciyaartooydii hore oo duqoodii ataan dhaana oo barsamaalkii oo dheeli jirtay warkaaliya helbina u baahannahay meeshaan 4 qofood iyo 5 qofood wax ka mataraysa ilaa 10 iyo wixii ka badanaa loo baahan yahay caruur Soomaaliyeed oo gaaraysa ilaa 75 ilaa 50 gaaraysa ayaa lagu hayaa man la kala ilaalin karo dad 4 qofood iyo 5 qofood ma ilaalin karto waa tahay Farax maxaad ku daraysaa inta ay yiraahdeen معلم برونو iyo Axmedey mustaqbalka waxaan damacsanahay in dhalinyaradaasi ay mustaqbal ku yeeshaan dhulkii hooye ee Soomaaliya hadda waad ogtahay saa ula socotid dhalinyaro ayaa waxay ka qayb galeen ciyaarihii Intercity-ga ee Tanzania
oo uu bakin uu waday waad ogeedeen iyo baana uu coordinator ka ahaa oo asaga uu maaragtay ciyaarahaas keenay guusha ay ka keeneenna waad aragtay rag fara badan oo ay maaragtay aan soo tababarnay oo macalin Bruno iyo Axmedey ay soo tababareen ayaa ku jiray meeshaas oo guul weyn ka keenay waxaan rajeynayaa sanooyinka dambe soo socdana in ay dhalinyarada faraha badan ay soo baxaan aan u dirno magaalooyinka Soomaaliya haday u ciyaari karaan dhalinyarada waan gartaa Leila waa wax muhiim ah macallimiintan runtii dhowr jeer baan ugu tagnay meesha ayagoo jooga oo dadka tababaraya ama ubadka waxaad arkaysaa caruurta intay aad u bateen yaa waxaan la kala garanaynin kii ciyaaray iyo kii ka baxay waxaan la kala garanaynin ka soo socda oo gali doona iyo ka sugaya waxaan la kala garanayn markaas arkaysaa iyagoo 10 meelood u kala ordaya ayagoo waxaad arkaysaa kiiba iska dhigayo ilaa 5 iyo 6 qof uu iska dhigayo waana wax loo baahan yahay sida ay yiraahdeen inay helaan taageerada u baahan yihiin taageeradu say sheegeen waxay noqon kartaa dhinaca jabka oo gacanta la geliyo waxay noqon kartaa dhinaca physicalka in laga qayb qaato oo dadku ay u tagaan oo caawiyaan waxay noqon kartaa waalidiinta oo qodobada si yiraahdeen aan meesha ka dhigin daycare oo ubadka inta ku tuuraan ka tagine la jooga oo xanaaneeyo oo yac kii leeyahay kii leeyahay fariiso kii sugaya la yiraahdo banaanka joog ama garoonka fadhi waa wax aad iyo aad muhiim u ah waana say ay sheegeen macallimiintaas waa tahay Axmedey waxaan ognahay in ay dad badan jiraan wadankan in dhibaatooyin badan ubad ka qabsadaan in wax badan la kulmo waa maxay waxa inta uu yiri anaga og inay tahay maxaa kala arinta ida waa mahadsan tahay waxaan u soo jeedin lahay horta gaar ahaan haddaan ka bilaabo waalidka inay caruurtan aan ahayno oo ay ka mid yihiin caruurtooda iyo qaarkan caruur u dhiganayna aado inay gacan nagu siiyaan haddii ahaaleed dhinaca dhaqaalaha haddii ahaaleed dhinaca xooga wax walba waa u baahnaa ninkaan dhaqaalaha oo na siina aad waxaan u baahnaa inuu na siiyo xooggiisa iyo timekiisa saa aniga aan time u gelino inuu nagu kaalmeeyo haddaan dhinaca ganacsiga waa dad badan ayaa marar badan aan cayaaro qaban waxna siiyey itoo waa ka mid seef miidkii oo la sheegaya hadda oo magaciisa Scalis Dooli dad badan aan siiyey laakiin ma aha isdaba ma raadi karna aniga time-na ma u hayna ma lihina waqtigeena kale shaqaan aadna wax baan raadsanaa qutulyoona raadsanaa intana soo hartan ciyaalkan saadna ma isku keeni karna inaan waalidiinta waxaan aad iyo aad ugu codsanaa meel walba ay joogaan gaar ahaan magaaladan Toronto inay gacan nagu siiyaan caruurtooda Soomaaliyeed aan hayna ay ku jiraan caruurteeda in gacan la isku siiyaa dhaqaalo la'aan wax ma soconayo Farax Jaamac Nuur maxaad ka leedahay inta uu yiri anaga og in waxyaabo badan ay jiraan oo dad badan ay ku tagaan maxaad ka leedahay intaas intuu yiri Axmedey waxaan ku darayaa waxaan jeclahay dadka Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan maaragtay doorashooyinka wadankan ka dhacaya oo xisbiyada ay ogaadaan sida ay u shaqeeyaan xisbigii Nooroon aan ogaano magarata Soomaalida ay isku duubnaadaan wadankan waa ku yarnahay laakiin waad u jeedaan inaan kala tafaaruq ay nagu dhex jirto magarata waxaan jeclahay dadka Soomaalida ah inay isku soo dhawaadaan isku duubnaadaan oo maaragtay wax qabsadaan oo maaragtay waxa ay rabaan ay wadankan ka sameystaan laakiin haday tafaraaruq ay ku jiraan ma u malayn doono inay wax sameysanayaan waligeena sidaan ahayna u kala maaragtay u kala irdhooweyna ama u kala joogeyna anigu intaasaan maaragtay aan ku soo gabagabeyn karaa in dadka Soomaalida ay maaragtay hal meel focuskooda ay saaraan ay maaragtay ay u jeestaan ogaadaan dantooda waxa ah iyo dhalintooda ay dhaleen meesha ay maaragtay waad u jeedaa Maxamed Daahir dhalinyaradii Soomaaliyeed u badneed dhalinyaradii soo kacisay hadda xabsiyada u badanahay dadka Soomaaliyeed ugu badan waa xabsiyada maanta ku jira sida aad ula socoteen marka Soomaalidu kama warqabaan waxa la fadhiyaa dooniyada biibtooyinka la fadhiyaa halkaas waxa looga hadlaa siyaasad lama oga waxa xiran waxa meesha ka jira lama oga soo dhibaatada ugu weyn oo haysataas waay mar community-ga Soomaalida aniga waxaan jeclahay inay isku duubnaadaan waa tahay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waqtigiina qaaliga ah waa macallin Bruno iyo Axmedey iyo Farax oday aad baad ugu mahadsantihiin waqtigiina qaaliga aad siiseen maanta waa mahadsan tahay Maxamed Daahir waa ku salaamay waa mahadsan Maxamed Daahir adiga aad u mahadsan maadaama aad maaragtay halkaana keentay oo aad maaragtay wareysiga naga qaaday adiga iyo codka beesha waa salaamantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh insha Allah waa hawshan meeshaan ka sii wadi doona haduu Ilaahay raa ururka Alamos hala taageero ururada kale oo jirana insha Allah hala taageero oo sokorka ah
Alamos waa urur oo basketball u taagan oo wadankan ka jiro oo dadka dhan ay og yihiin qofkii ogeyn ha ogaado insha Allah dad badan soccer sameeyo oo macallimiin badan ay ka mid yihiin Harbi Cabdisamed Anwar dad badan busuri oo nagu taageero mar walba dhinaca website-ki iyo hooshii oo muuqaalkii iyo waxaas asagana aad u seenaa hambali aan ugu soo jeedina busuri aad u mahadsan tahay daawadayaal saaxiibayaal halkan waa muuqaalka Soomaalida oo barnaamijkaygii waa barnaamijkeennii inta aan dib u kulmi doono talo tusaale tilmaan taageero soo tigso tirada telefoonka iyo emailada hortiina aniguna waan tixgelinaynaa ujeedadiina iyo canaantiina iyo taladiina iyo wax walba aad noo soo jeedisaan waan tixgelinaynaa aad baad ugu mahadsantihiin intaan dib u kulmi doono ubadkiina af Soomaali kula hadlo